waxaan leeyahay arrintaas si laba laaba arrintaas si laba laaba hal la joojiyo dagaaladaas dalkaani hal cadow buu leeyahay maanta waad ogtihiin laba dagaal baan ku jirnaa oo culus dagaal kale oo gudaheena uma baahnin dagaalka koowaad aan ku jirno waa midka khawaarijta ee dalkeena iyo dadkeena manaafeeyay oo aad ogtihiin habeen iyo maalin inaad dagaal ku jirtaan oo aad shahaado qaadataan oo jihaadkaas ku jirtaan dagaalka labaadna waa dagaal diblomaasiyadeed oo kula jirno dawlado iyo dad kale dadyow kale oo u maleeyay ama u arkay in ay si dhib yar dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah inay isaga qaadan karaan sidaa darteed annagu waxaan kula jirnaa dagaal adag oo diblomaasiyadeed dadkana mashquulinaya marka ay Soomaaliyeed nagu mashquulinaya in hebel iyo reebel deedna dhiiga wiilasha Soomaaliyeed si raqiis ah ku daadinaya waa dambiilayaal waxay u hiilinayaan cadowga haddii uu yahay kadibada iyo haddii uu yahay khawaarijta ugu dhex nool intaba ayaga u shaqeynayaan ama hays ogaadaan ama aysan sugaanin laakiin ayaga u adeegayaan waxaan hubaa wiilasha yaryar ee dagaalamaya shidaalka iyo rasaasta ay ku dagaalamayaan ayagu ma laha waxaa leh kuwa waaweyn kuwa dibad jira kuwa dalka jooga ganacsato odayaal dad Soomaaliyeed oo aan wiilasha yaryar ee baadiyaha iska jooga ee aan fursad waxbarasho badan oo kamid helin iyo kuwa yaryar oo arday ah oo hadeertan iskuulada intay ka baxaan leeyahay dagaal gal reebel baatiine dadka abaabulay ayaga ma dad baa abaabulay marka dadkaas ha ogaadaan in la xisaabtamayo آخرنا إلهي بالله حسابتني أدونكنا ومدة الصوماليات بالله حسابتميس والد بيليال عروب باقي يا أنت كرامة له شرفت له وأيوه الريال مدح دقنك مدح قبائلك أقوي هنا كجيران علماء كجيران وقبلها الصوماليات كجيران اللي يراد مير كقبت كجيران دقالة صدق بوجوش dalkan in hal cadow leeyahay cadowga laga aado annaguna waxaan leenahay war la dagaalama cadowga idin haysta oo iska dhiciya ayaguna ayagii baaba cadow soo arko isdilay marka waa kaaf iyo kala dheeri wali dalkeenu waa dadkeenu waa miir laayahay miirka Allah u soo celiyo kuwii waxa soo dhan ay u yaaleen oo waxa la rabay inay wax ka qabtaan kala dhex galaan kuwa mujrimiinta ee dadka shidaya soo qabtaan waa idinka marka wala idin sugayaa waxaan rajaynayaa in